magacaygu waxa weeye injineer maxamed maxamed waxaan dhowr jeer hore ka hadlay ama saxaafadda iyo midiyaha kala duwan soo mariyay daliil aan dhaliilayo ama musuq baahsan oo ku eedeynaya ururka Haldoor maanta waxaan jecelahay in wax cadaan ama proof ama daan soo hordhigo ururka waxaan kamid ahaa afartii qof ee ugu horeeyay ee isku yimaada ee ka wada hadla in urur number of organization la asaaso isla markaana deegaanka u shaqeeya iyo bulshada afartii qof ugu horeeyay asaasaasha ururkan kamid ahaa ururka waxaan u asaasnay ururku inuu noqdo urur aan faa'iido doon ahayn oo la yiraahdo number of organization sababta labaad oo asnay waxay ahayd inuu ururku u adeego ummadda ka soo jeeda deegaanada ururkaas ka dhisan yahay haddii caafimaad noqoto haddii waxbarasho noqoto iyo haddii adeeg kale oo markaa xasaasiyo loo baahan yahay noqoto Abdullahi badanka ilaa markaa musuqmaasuqa aan sheegayo musuqmaasuqa ugu fudud ee ummadda markaa imika aan u sheegi karo waxa kamid ah tusaale ahaan oo kale ururka Haldoor wuxuu shaaciyay ama shaaca ka qaaday inuu dhisi doono iskuulka farsamada gacanta ee Maxamed Mooge iskuulka farsamada gacanta ee Maxamed Mooge meel kasta yani dhisankiisa wadanka injineer way joogaan shirkad badan oo ka dhisan yihiin markii shirkadii ugu qaalisanayd ee anu waan arko isla markaana sheegtay inay tayada ugu fiican ku dhisayso lacagtay soo qortay ama ku soo qiimaysatay waxay ahayd $287,000 halka ay ururka Haldoor iminka mas'uuliyiinta gacanta ku haysta ay ku tilmaameen inay qandaraaskii ku bixiyeen $360,000 labada lacagayo farqiga u dhaxeeya waxa weeye $67,000 weey $67,000 ee farqiga inta laga u dhaxeeya ummadda wuxuu qaban lahaa wax aad u weyn buu qaban lahaa waxa weeye qandaraaska marka la bixinayo waa qandaraas aad u weyn weey baaxad weyn ee wala soo xaysiya shirkadaha lagu tartansiiya short list bala sameeya quality-ga shirkadaha la eega process bala soo mariya yani kulli farba ku godan ayna noodad yani si fiican oo ogahay arkaasi inuu soo jiro soo dhacay tusaalaha labaadan bixin kara waxa weeye lacag ba jirtay loo ururiyay abaari barga dhaweeto iyo biyadaankii lacagtaas waxay dhameysay $23,000 $23,000 la ururiyay dad time la ururiyay waxa la isticmaalay cid walba oo ogay midiyan uu joogay extra ogay $12,000 baa la isticmaalay $12,000 ayaa xataa aan la garanayn meel la meel qabtay meel ka dhaceen hadaba waxa weeye urur markii hore mabaadiida loo aasaasay oo anigu aasaasay ururkan kamid ahaa ayuha hadaba imika maanta waxaan bartan ka shaacinayaa sababaha keenay khilaafka aadka u baaxad weyn ee ka dhex jira ururka Haldoor ama aan oran karo ururka Haldoor inuu u kala jabo laba garab sababaha keenay waxa kamid ah ururkii oo markii koowaad ururkii oo gacanta u galay dad aan dhab aanay ka ahayn ujeedada ururka loo aasaasay oo ahayd number of organization number 2 ururkii oo loo rogay profit organization oo isaga loo soo shaqo tagayo ururka urur samafal buu ahaa waxa urur samafal loo soo shaqo tago ee wadada loo shaqeeya ururkii isaga loo soo shaqo tagayo taa waxaan tusaalaha diisin karaa imika afarta xubnada ururka Haldoor u sareeyo kale idar waxa weeye hal qof shaqeeya maanta hadaan $100 islaado adiga u dhiibo $100 ku dhiibanayo waxa weeye markaan ogahay inaad qof ka maarmay tahay $100 aan u baahnayn ayaan ku dhiibaya marka soo madax fiisa laakiin haddii aad u baahan tahay oo wax la haystaan jirin taa waxa weeye $100 oo radaway u baahan marka waxa weeye costis last costis mission guud dambeeyay la sameeyay wakaas ururka Haldoor ee lagu qiimeeyay baalka xanuuntan farsamada gacanta Maxamed Mooge marka waxa weeye horta waxaan hadda daan soo jeedinaya ilaahay quraanka wuxuu ku yiri inna a'radna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa bayna an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula waxa weeye waxaan ay haysan wax amaana weeye waxa ay idinku leeyihiin maaha waxa jabinka saateen maaha waa wax dad jecel wanaag iyo horumar ay jabkooda ka soo saareen kadib akoon ay ku rideen kadib ay ugu tala galeen bulshada sidii marka ay rabaan in loo gaarsiiyo anu waxaan dadka deegaankaas ama bulshadaas barta uga cadeynaya ugu jeedinaya inaanu hayn xaqiiqatan marka runta laga hadlo dadka imika joogo laga bedelo mooyaane inaanu hayn urur wax lagu aamini karo aniga way dhowr jeer weela soo xireen gaarado ku soo diray walba waxana ku soo diray wallahi ana ay soo dirti jirin anu salaf shakhsi baan kaliya wixii aan arkan waan sheegaya wax qabad waan sheegaya hadaan arko laakiin wax qabadka arko waxa ka weyn xaqiiqatan ma runta ka hadlo musuqmaasuq baasan iyo xumaanta baasan iyo lacagta faraha badan ee la sanayo meesha jirta haga lagu arkay lacag qaaran lagu soo ururiyo umad loo sariix lagu soo qabanaya oo $5,000 wandhay hudla laga qadayo
ummadii lagu soo qaatayna ee leeyahay wax waan u qabanaa lacagta lagu soo urursanaa wallahi ay toban u baqsiyaan dad miiga u baxay markii abaaru jireen subhanallah wax weeye anigu waxaan diyaar ilaahay mar wala kastaba wixii aan arkay insaas ka soo gudbiyo wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh